nebi sulaymaan markuu sheeganayay isna wixii alla siiyey wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa tayr wa uutiina min kulli shay isagoo wax sheeganaya wuxuu leeyay yaa ayuha annaas dadow cullimnaa mantiqa tayr waxaana la baray afshimbireedka wa uutiina min kulli shay wax walbana waxbaana laga siiyey uu tilmaamaya wuxuu horraysiistay bay leeyihiin afshimbiraad in la baray aqoontu qiimaha ay leedahay isagoo tilmaamaya nebi sulaymaan shimbirtu afkay ku hadlaysa buu garan karayo rabbi baray waxaa qur-aanku uu inoo tilmaamaya dowladnimada sulaymaan oo dowladnimo aad u xooggan ahayd aqoonteeda inay ka mid ahayd basharka daaya inay la dhaqmi karto markaa noolahan yaryar ee shimbirtu ka midtay waxaa kaloo qur-aanka warramaya inuu la dhaqmay qudhaanjo rabbi wuxuu leeyahay wuxuu maqlay qudhaanjo leh yaa ayuha annamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowliha baa ilaahay wuxuu maqlay qudhaanjadu waa xayawaanadan gruubka u nool oo maamulahoodii uu leeyahay ama mid ka mida ay leedahay qudhaanyoy nebi sulaymaan iyo ciidamadiisu iyagoo aan idin dareemaynin yaydan marine guryihiinna gala meesha waxaa ka muuqata inuu afqudhaanjada fahmi karayay waayo ilaahay wuxuu leeyahy fatabasama daaxika min qowliha waa dhoolla caddeeyo waa muusooday isagoo qoslayo warkeeda ka muusoonaya amase ka qoslaya waxaa qisada nebi sulaymaan ka mid ah oo rabbi subxaanaه wa tacaala uu ka warramaya nebi sulaymaan oo u baahday carshigii balqiis in la soo qaado dabeetana koox hortiisa joogta ay ishayso cifriit min aljin uu leeyahay intaanad meesha ka kicin saacaadka shaqada inta aad ku jirto baan keenayaa carshiga rabbi subxaanaه wa tacaala cifriidkaa jinka ah mid ka xoog badan baa laga warramay kaasi wuxuu leeyahay working hourska saacadaha shaqada gudahooda intaad shaqada ku jirto ee aanad ka kicin xafiiskaaga baan keenaya laakiin ilaahay wuxuu yidhi waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kii cilmiga kitaabka la siiyey ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbidhiqsi in leeg kow kan lama sheegin ma jinbaa ma insibaa ma malagbaa waa noocma waxaa lagu tilmaamay sifo sheegisteedu ay ku filantahay isaga sheegistiisa waxaa lagu sifeeyey inuu yahay alladii cindahu cilmun min alkitaab aqoonyahan baa lagu tilmaamay waa aqoonyahan kitaabka yaqaanay baa wuxuu yidhi aqoonyahankani inuu malag iyo inuu jin yahay iyo inuu cid kale yahay ilaahay kama warramin laakiin waxaa laynoo sifeeyey inuu aqoon ahayd waxaanu wax ku keenayay aqoontan wakhtigaa taagnayd ee nebi sulaymaan iyo ciidamadiisana la siiyey waa aqoon aan maanta dunida oolin waayo sariir boqortooyo in saba oo yaman ku taalla laga qaado oo la geeyo falastiin oo nebi sulaymaan degganaa oo lagu geeyo elbidhiqsi aqoonta bini aadamka iminka wuxuun bay awooddaa only mala haddii loo diri lahaa asa signal qoladiinnii kombyuutarradii iyo telefoonnadii waxaan ka warrami jirtay yacnii asa signal haddii inta carshiga la dhalaaliyo signal laga dhigo oo la sandgareeyo dabeetana within milliseconds dhanka kale receiverku uu qabto dabeetana dib loo amaamudoo la shaaciyo that's the only technology maanta mana suurtagal ahaan lahaa in ay samayn karto laakiin rabbi wuxuu tilmaamaya subxaanaه wa tacaala qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka طarfuk waxaan keenaya idan meesha waxaa la tilmaamay wakhtiguu ku keenayay iyo cilmigii noohawgii laynooma sheegin laakiin waxaa laynoo sheegay waxaan ka dambeeyaa inuu yahay maxay aqoon qisada nebi sulaymaan waxaa kaloo ka muuqata haddaynu nidhi aqoon taqniyana way ka muuqataa farsamo technology waayo gabadhii markay soo islaamtay nebi sulaymaan wuxuu iyo kooxdiisii waxay amureen in la sameeyo sarxun mumarad min qawaariir dhismaa la sameeyey quraarad baa la saaray
waxay culamadu biyaha hoosta laga mariyey qaab bay dhalada tani u samaysnayd aanad dhalanimadeeda arkaynin ee biyuhu quri kuu muuqanayaan dabeetana qofka dul maraya qofka markuu meesha soo bilaabo wuxuu soo dhanayaa biyaad maraysaa ayadii ka faydo ila biyuu arkaaye dhaladu waa transparent aan muuqanayn marka biyaha markuu sidhaahdo dhexmar qofku wuu faydanayaa boqoradii waxaa la yidhi qiila laha dkhuli sarx na halkan mar baa lagu yidhi falamaa ra'athu xasibathu lujja wakashafat can saaqayha baa ilahay yidhi markii ay meesha soo martay waxay u malaysay meel qodanoo dee biyo ku jiraan dabeetana dhudhumaday faydatay qaala innahu sarxun mumarad min qawaariir waxaa lagu yidhi waa dhismo mumarad ah mumaradku yacni waxa weeyaan amrad laga dhigay sisib ah very smooth ah corrugation aan lahayn qoladii farsamadu bahash yareed ay saari jireen marka la saaro wax hawi waa dhismo aanu ka muuqanayn siman oo min qawaariira ka samaysan baa la yidhi quraarada ka samaysan idan waa technology muujinaya biyihii inaanad garan karin meeshu inay biyaha rasmiya yihiin iyo inay dhalo tahay aanad garan karaynin qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi daawuud kow aayaad waa kaynu xagga hore ku soo marray in cilmi la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilmaa taqniyada marka laga warramayo qur-aanku wuxuu ka warramaya maxay وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وألنا له الحديد وحنوتش العنبا إلى هير حديدك آيرانك دبتنا وحلويد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واحد سميسا دروع صابغات قلب كان لغو دقال قاله سيفتا إياه وحكين علينيه وقدر في السرد حلقيدنا waxay yidhahdeen nebi daawuud farsamadii ugu horraysay bergerigii hore waxa la qaadan jiray bir isku taxan laakiin birta in laga dhigo xalaqaad yaryar seer kalis yaroo la isu sursuro oo silsilada yaryar laga dhigo silsilada aan warankiiyo seeftu toona geli karin laakiin jidhkoo dhanna lagu qarin karo silsilada inay noqotaa waxay samaynaysaa flexibility jidhku wuxuu helayaa inuu ila wuxuu waa silsilada way kala dhaqaaqaysaa inuu dhaqdhaqaaqo oo uu qofku dagaalkii si fiican uu geli karo waxay kaloo samaynaysaa inaanu soo gelinna maxay bahalkii waxay kaloo samaynaysaa inay fududaato oo birtoo dhamme hadday malaasanaan lahayd dee meelahan daldaloo dhan wasni baa hadhay miisaankii badh baa lumaya idan waa technology cusub oo technologigii markaa yaallay ka gedisan oo hadday tahay fudayd hadday tahay costkoo ka yaraanaya kii hore qiimahoo yaraanaya hadday tahay flexibilitygeeda iyo siduu qofku u dhaqdhaqaaqi karayo tiro badanaysa farsamo cusub buu sameeyey sideedabana adduunkan ay maanta aragtaan wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo technologygan cusub aa arkaysaan dhammaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo birta in la tumi karo aanay jabinna 19th centurygii bay dunidu bilowday productionkeedan tirada badan leh birta in la adkayn karo ama stiil laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasayo iyo noociyaadkeeda industriga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo qaybii ugu horreeyey taariikhda sayniska taariikhdiisa haddaad dib ugu noqoto ingiriiska markii ugu horraysay birahan yar uu samaynayay suulishku ka soo qaateen tijaabo yaroo aad u liidatay ahaayeen laakiin tijaabooyinkaasi wakhtigay guusha gaadheen baa industriga weyni bilaabmay waayo industrigu dhammaantii hadday hubtay hadday wax kala tahay everything bir buu ku xidhan yahay birta in lala tacaamuli karaa waxay sheegaysaa inay tahay technologyga asalka uu ka intilaaqo ilaahay subxaana wa tacaala nebi sulaymaan wuxuu tilmaamayaa waalanaa lahu nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid nebi sulaymaanna ilaahay wuxuu leeyahy waasalnaa lahu cayna alqitr waxaanu u dhalaalinay baa la yidhi cayna alqitri nuxaasta oo yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariba watamaahiila wajifaanin kaljawaabi waquduuri raasiyaat bale qur-aanku wuxuu tilmaamaya laqad arsalna rusulna bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqisط waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiida wamanaaficu linnaas ilaahay wuxuu israaciyey
rususha la soo diray ee kitaabka iyo miisaanka iyo cadaaladda lagu soo diray iyo xadiidka in ilaahay soo dejiyey baa ilaahay soo raaciyey la tilmaamaya inay noloshu labada tan ay ku salaysantahay